وهاجي waxaan ku dhufanaa image-ka waxaan tegaynaa desktop markaan tagno waxaan ka dooranaynaa kii aad magacaan u bixinay magacii download Shopify sawiradan kala eegaynaa sawirka ugu horeeyaan rabna kan uu ahaa waa gelinaynaa downloadkii wadaa here we go default noo yahay so waxaan leenahay save mid kale aan ku daraynaa we have to put 3 xabo that was exactly siduu ku fiican yahay we added one here so we add another one mid kale aan ku daraynaa haddana collection kale hal xabo noogu jiraa create another one mid kale aan ku daraynaa waxaan leenahay another makeup lavender iska sample ahaan waa makeup lavender another one waxaan tegaynaa image-ka haddana mar labaad waxaan leenahay kii ku xigay islaantii bujiga weynan meeda okay waa kanaan ku dhufanayna haddana waxaan leenahay save saddexdan ugu horeeyaan rabnaa inaan meesha soo gelino from there product aan isaga soo daraynaa and then this chapter waa xiraynaa Shopify storekiisa saasaa loo sameeya iyo xoogaa yar sharaxaad aan ku dari doono oo bonus ah hagaag uu soo wadaa marka uu dhameeyo waxaan samayn doonaa save and then we go from there here we go waxaan leenahay save markaan save gareyno waxaan ku noqonaynaa production collection again maadaama aan save gareyno productigan collectionkan tegaynaa mid labaad uu soo galay waxaan rabnaa inaan soo gelino mid saddexaad waxaan leenahay create collection again waxaan u bixinaynaa Wadani makeup waxaan leenahay add image again waxaan raadin doonaa image kale oo Wadani kanaan ku daraynaa waxaan leenahay save this one waxba sharaxaad waxba u baahnid because kan sharaxaad ma soo saarayo kuwa kale markaa productiga caadi gelinayso sharaxaad soo saari doonaa laakiin right now wax sharaxaad la dhaho ma u baahnid sababtoo ah waa 3 xabo oo best sellerka ah once you see best seller 3 xabo qofkaas uu arkaya price-kooda uu arkaya and it's good to go here we go aan waxaan leenahay save now again so this is the best seller sort process best seller product and so kuwan waa alaabaha best sellerka hadda xaga ku aragno and markaa intaan joogtid waxaa ku dhufanaysaa mar labaad productigaagii hadda waxaan ku dari doonaa waxyaabaha loo yaqaano product intaan ka soo import gareynayna computerkeena 1 2 3 haddaa u baahan tahay kuwo kale inaad ku darto iyo haddaad u baahan tahay inaad kala wareejiso number 1 to update it this one must go number 1 inuu tago here we go so marka product hadda waa gelinay collectionkii waxaan tegaynaa meesha loo yaqaanay product waxaan ku daraynaa productiyo fara badan hadda ku daraynaa xagga soo wada gelinaynaa markaas kadib sidaan storekeenii uu u noqdo mid yani jira okay so now waxaan leenahay short sleeve mi xagga maadaama wixii hore naga aqrinaya waxaan leenahay makeup lavender whatever it was maxay ahayd qonaa kana sharaxaad hadda lagaaga baahan yahay inaad maadaama productiga hore pageka aad joogto sharaxaad marka lagaaga baahan yahay it's very good inaad laba shay u samayn kartaa you know ama waxaad dhigi kartaa xaggan inaad soo qaadato productigaaga inaad soo qaadato copy ayaa xagga ku dhufanaysaa xaggaa ku qoraysaa past ama waxaad tegaysaa AliExpress ama Amazon waa soo qaadaysaa intaa ku dhufanaysaa ama waxaa weydiinaysaa waxa loo yaqaano IA okay so IA waxaa soo qaadataa ku dhufanaysaa bartan waxaa leedahay generate gare description of this product IA AliExpress kuu sameynaya mujeeda haji flawless with a makeup lavender made blah blah wuxuu soo qoray waxaa leeyahay keep this so automatically ana waxba aan dheer aan sameynin wax kale aan sameynin waxaa ii sameeyey makeup description waxaa ii sameeyey AAgii oo Shopify ay wadato AA kale waa jiraan haddaba baahantahay chat GPT maxaa la chat GTP aad tegaysaa
waad si fiican aad usoo qoranaysaa xaggana imaanaysaa kan xataa is okay still laakiin you can do more waxaan leenahay upload sawirkan aan rabno maanta inaan soo qaadan annaga waxay tahay mid meesha iska yaala oo screenshot ah soo qaadnay tusaale ahaan ah kuwaasaan wax ka sheegaynaa this one right here okay that was Amazon aan kasoo qaadnay haddaa u baahan tahay kuwo badan inaad ku dartid you can add kuwo badan more because he doesn't want Amazon so anyway toos aan usoo qaadanaynaa waxaan tegaynaa AliExpress baalada meeshaan kusoo qaadnaa diet Ali makeup Ali something Ali makeup description here we go kan ku dar kan ku laba wax baan ku dareynaa kan ku dar moo sawira ku darto moo oo ii sheeg dadka ay arkaan ay aad uga farxaan ay noqonaysaa kan ku dar you know so marka saano kan haddana mid kale kusii daraysa 4 xabo 5 xabo sidoo qofka wejigiisa noqon doono kan ku dar taasid markaa intaa gelisid price-ka ku qoraysaa price-ka annaga aan kan geli doono waxay noqonaysaa 15.97 alaabta price-ka la gedi jiray marka hore wuxuu ahaa 23.49 tusaale ahaan okay 79 hadhow waxay noqonaysaa calaamadan inuu ii sheegaana ay highlights ay meeshan calaamadan inuu noqdo uu saaro xariijin uu dhaho haddan alaabtan waa sell 10% sell tahay so xaggan hoose weli waa arkaysaa haddaa u baahanta cost per itemka kugu fadhiyo waxyaabahaasa ku qoraysaa laakiin we don't want to know that waxyaabahaas ii sheegaana shop location continuous selling when out of stock markuu out stock iyo xataa weli sii gad laakiin out stock hadduu yahay track quantity-ga hadhow waan ku xiri doonaa quantity-ga iyo culayska uu yahay waxyaabahaasa xagga lagu weydiina waagaa dhinacan midiga kuu soo hartay dhinacan kale wax ku qoran sawirkan waa active location category lotion and moisture automatically wuxuu aqriyay title-kayga product type ma u baahnid product type waxay tahay face moisturing mate powder vendorka waa kuma ku leeyahay vendorka you can say AliExpress haddaa u baahan tahay mise Amazon you can get this one I mean title-kana uu qaadan doonaa isleeyahay vendorka waxaan leeyahay Amazon linkigaan gelinaya hadduu linkiga qaadanayo collection uma baahni default uma baahni marka intaa gelino waxaan leenahay weigtka culayska alaabta variation kuma dareyno intaa kusoo harta search engine listing this waa ku caawinaysaa automatically search engine listing sida aan kusoo qornay IA-ga meesha ku qornaa waxaan ku qornaa Gflare marka Google uu qof geliyo waxyaabo la raadinayo yani sidaa la socotaan Shopify store-kaaga adaa qof dadka usoo xayeysiinayo adaa xayeysiinta lacagteeda la baxaayo okay linkigaan oo kala qaadaysaa Google aad dhigaysaa ayagana hadhow ii sheeg waxaa waaye search engine optimization waxa loo yaqaano haddaa u baahan tahay inaad waxyaabo badan ku dardartid waxyaabo badanaa ku dardaraysaa sida face makeup you know waa keyword aa ku daraysaa any keyword oo malaysaa ku daraysaa and then from there hadhow kana qaadaysaa Facebook aa gelinaysaa meelahaas waxaa u baahan tahay inaad xayeysiisato howlahaada xayeysiisanaysaa waxaa ku bixinaysaa lacag yar like at this point since you doing it drop shipping and Amazon oo kale ka samaynaysid ama ka samaynaysid AliExpress ama meelo kale ku samaynaysid this one Shopify TikTok aad dhex dhigaysaa meelaha so you will make traffic to your store okay waagaag waxaan leenahay safe markaan dhammayno waxaasoo dhan waxaan leenahay safe arrimahan ku saabsan xayeysiinta mar dambaan ka hadli doonaa Shopify waxaan leenahay safe productigan number 1 waa noo safe garowday congratulations you added your first product mid labaadaan ku darayna haddana waxaan leenahay add another one ama duplicatean ka dhigaynaa haddana waa sii tirtiraynaa like for sake of this video waxaan leenahay add another one hal haba add another product mid labaadaan ku daraynaa so mid labaadaan ku daraynaa haddana sidoo kale aan sameynaynaa waxaan leenahay blue lavender iskana waa inaan 3 xabo meelahaas ku darnaa blue lavender blue lavender
kanaan soo qaadanaynaa blue lavender makeup. You need to make sure you do the right thing, man. Otherwise waxa waaye hadaadan inta badan sababta dadku dhahan waxa lagu yani qofka ku sameeyo waxaan loo yaqaano designka marka lagu design gareynayo this is waxyaabaha kamid ah. So weli haddana meeshii sidii processkii hore daytan marayna waxaan leenahay add another one. add waxaan leenahay noo create great description. xagga ku dhufanaysaa description kan disgreyna magacooda ii sheeg makeup. xaggana ku dhufanaysaa automatically another one ku sameyn. waxaan leedahay keep it kan keep garee. haddaad u baahan tahay sawirro kale soo download gareynaysaa. waxaan leenahay let's go. sawiradii mid ka mid ah markaan waxaan raadinaynaa number 2 makeup ah. waxaan isla eegaynaa waxa uu asnana siiyo. kanaan qaadanaynaa ama kan midkii xoogaa noo fiican. I believe this one gabdhahana noo fiican. kanaan qaadanaynaa halkaas xabaan ku ekeenaynaa maadaama so okay and again pricekii sidii aan ka dhigaynaa kan waxaan ka dhigaynaa 9.999 wuxuu ahaan jiray 15.99. cost per item anaga noogu fadhi profit marginkiis waxaasoo dhan wax naga gala male. don't track productigana track gareyni because there's nothing to be tracked. sidaan sheegaynay variation haddaa ku daraysid, custom information haddaa ku daraysid, optimization haddaa ku daraysid aday ku taalaa iyo maxaa la dhahaa search engine optimization haddaa ku daraysid aday ku taalaa. xaggana kuu soo hartay cosmetigu intuu ku qoray which is good. laakiin haddaa u baahantaa waxaad dhigi kartaa waxaa ku dhufanaysaa categorigaad rugtaa ka dooranaysaa. waxaan leenahay babe beauty health and beauty. health beauty markaan kasii tagno waxaan kasii dooranayna product made powder makeup. vendorka Amazon same thing. collection lavender make blendery iyo wadani makeup. saddexdaas xabo ayaa meesha ku jirta. taggan markuwaanay noqonayaan tagga aad u baahan tahay oo keyword tag waay. kan waa ku jiraa عفوا sorry. waxaan kaloo dhigi karnaa face mask as a tag. it's good inaad dadka taagaraysid wax kasta qofka uu qabanayo face mask waxyaabo badan ku taagaraynaysa. markaas kadib waxaa leedahay safe. okay so we done. laba xabo waa gelinay wixii dhan waa sameynay inta badan. waxaan tegaynaa meesha loo yaqaana again home product aan ku dhufanayna laba xabaa noogu jirta. laba xabaan gelinay. meesha vendorkeena waa naqaana waa ka Amazon. haddaan ku dhufano is gonna take us Amazon. waxuuna keenaya meeshan. markaas kadib Amazon ka adeena saa koodkaada ku ogaatid. what else we supposed to do? okay waxaan leenahay marka homekaan tegaynaa. let's see where we can go from here and then waxaan fiirinaynaa storekeena customization browser online. hal mar inuu storekeena tuso maadaama soo gelgelinay waxyaabaha noogu jirjira iyo waxyaabaha kale. online store of you your store sorry. let's see halka marahay haddaan wax qaladnay haddaa dib aan ugu noqonayna weli wax baa noo dhiman laakiin let's see where we are. so right now according to here meeshaan inta ka arkeeno halka xabo waa kan alaabihii pricekiisa labada xabaa noo soo gashay hadda. supposed to be 3 xabo ay ahayd. we don't know why. wax ku qaldamay 3 xabo. haddii aan dhahno catalog productigeena waa kana labada xabo hadda aan soo gelin kaliya ku jira. and we can add more. pricekan gelina 15.97 lacagtaan ku iibinayna 99 midkan waa 9.97. pricekii waa la xariiqi waa arkaysaa 15 aa la gedi jiray kana 23 aa la gedi jiray. so waxaan sameynaynaa productiyo fara badan aan soo gelinaynaa waa isku soo noqonaynaa.